waxaan daawaday nin loo yaqaano tanaga madow ama macasha madow oo puntland horjooga ka ah oo maanta intuu baraha bulshada soo istaagay afartan waxa weeye mataqaanaa maleeshiya u eeg oo isagu gacan ku ramisa oo isagu magacawday oo aan matalaad shacab haysan intuu hareere iska soo mariyey cabsi daraaddeed waxa weeye mataqaanaa warbaahinta horteeda ka calaacalayay horta shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh ee dowladnimada jecel waxa weeye waxaan u sheegayaa ninkaas waxa weeye mataqaanaa baraha bulshada ku aragteen ee anigu dan uma aqaanay macashaan oo aqaanay ama taniga madow aan u aqaanay ma aha nin matalaad shacab Soomaaliyeed haysta ma aha nin hadalka ka soo baxay ee warbaahinta la wareejinayana waxa weeye mataqaanaa mid saameyn ku yeelan doona Soomaaliya ma aha laakiin se halka mid aan idin sheegaya xaqiiqada biyam kama dhibcaanka waxa weeye ninka aad baraha bulshada ku aragteen ee macasha madow ee imaaraadka u shaqeeya kaliya waxa la yiri fulay waxa loo tagaa ceebtiisa marka xaqada la tago kaliya wuxuu arkay maxaan ku radaa go'doonka iyo hareeraynta lagu hayo dhigiisa ninkii qayrkii loo xiray adiguna soo qoyso ayuun baa ka dhawaajisay mooyaane ninkaas horta waxa weeye mataqaanaa saameyn iyo waxa weeye mataqaanaa siyaasad uu Soomaaliya iyo geed socodka dawladnimo ee xawliga ku socda uu ku yeelan kartaa ma jirto Soomaaliyana ma kala goyn karo Puntlandna saameyn kuma laha waxa weeye shacab doortana ma jiraan matalaadu dad ku dheexleeyeen ma jiraan Soomaad garan iyadoo aan cid kale loo dirin ba waxa loo dirayaa oo waxa weeye mataqaanaa jawaab ka bixinaya maalinta loo baahdo in waxa weeye badida dhulka loogu dhufto Ciise Yulix waa loo dirayaa حوي لواتك كنا ويلا على سلبانة وحوي ما تقنا عرمية بوساسة شوجا مالين كست بوساسة كسوريا ده لا بلاد كهر بهاد مركو أضياش اسمه الصوماليات قبل هذا بنتلاند دقن أي أوبريين ده كده بوساسة إنه كسر نقضه وحوي ما تقنا وعشورتي بالحين ما ملكو سيجرو با انت قرك اللي قبتي ويلاش الصوماليات على السلبان بوحر لور مسكين كان دقنتها عقد الموضوع عقلكم ما تشري والنف نفسنا عدكو كهوابيه faraha laga qaado laakiinse maanta intuu wuxuu ku sii darsaday intuu daraad Nairobi tagay oo imaaraad la kulmay Kenya xoogaa soo baxayso tunka u soo garaacday waa aqliyad inta ku filan oo cagaha ku jirta laakiinse waxa weeye mataqaanaa hadalka ka soo baxaya anigu horta waan ku farxay inuu sidaa yiraahdo kama nixin sababtoo aqli kuma tuhmeyn karti iyo waxa weeye mataqaanaa shakhsinimo aan ku ogaayna ma jirto laakiin se waxa weeye mataqaanaa waxa jiri kara dad Soomaaliyeed oo daacad ah oo aan aqoon u lahayn oo laga yaabay inay hadalkiisa si xun u turjuntaan Soomaaliya ma kala goyn karo garow waa ugu yar u joogaaye garow kagama dhawaaqi karo Soomaaliya inay ka goday Puntland ma maqashaan saamila socotaan horta garowe intuu istaago kagama dhawaaqi karo Soomaaliya Puntland ka jaray xiniyahaas iyo baridaas iyo wadnahaasna malaha Soomaad garan hadduu ku dhawaaqana waa nimcadeena iyo baraaradeena iyo guusha ummadda Soomaaliyeed waxaan hubaa oo ku kalsoonahay oo maanta aan layga sheekeynayn shacabka xalaasha ah ee ku nool gobolada Puntland oo ah dad ay qalbigooda iyo waxa weeye mataqaanaa maskaxdooda ay degan tahay wax la yiraahdo Soomaalinimo wax la yiraahdo dawladnimo Soomaaliyeed waxaad ku tusaale qaadanaysaan oo aan tusaale idinku soo qaataa maalinta uu yimaado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cali Maxamed Khayre maalinta Puntland taga sida loo soo dhaweeyo waxa weeye mataqaanaa dhulku u gariiro ayaad inoo maadariya tusaale idinku filan Soomaad garan isagana inay magaalada bisadtimi in waxa weeye mataqaanaa oday qabqabla uu yimiday iyo inuu jiray inaanu jirin lagama dareemo garoomada uu ku soo dogay ee magaalooyinka uu sheegto xukunkooda adeero markaa shacabka ha isku dirin والله waxa lagu dirayaa 20 kun ama 50 kun cali Saleebaan iyo xogaa waxaan ku raahdaa in yaro lagu daray maxaa 20 war 5 kun wiil baa kugu filan garow waad ku sugan tahay oo waxa weeye mataqaanaa xamuus Saleebaan kugu hayaane adeerow macaane ha isaga darin Puntland wax ma yeeli kartid mana baabi'in kartid waxa weeye mataqaanaa Soomaaliya kama goyn kartid go'aankeeda iyo masiirkeeda ma leehid aqliyada iyo kartida noocaasna Abdullaahi Yuusuf oo Soomaalida waxa weeye mataqaanaa bari ugu aqli badnaa baa wuxuu go'aansaday Puntland oo ugu awood badan maamul goboleedyada Soomaaliyeed xilliga dhisnaa inuu ka doorto inuu qaran Soomaaliyeed raadiyo
oo wiilashii uu soo tababaray oo maxaan ku rahdaa dareyska u xidhay inuu dhammaantood ka soo raro Laascaanood iyo Garowe uu ka dajiyo Baydhabo iyo Muqdisho oo dhammaantood ay ku aasan yihiin Baydhabo iyo Muqdisho iyagoo dalkooda u huraya naftooda iyo dhiigooda iyo dhacaankooda oo raadinaya in calankooda buluuga iyo dadnimadooda iyo Soomaalinimadooda ay soo muuqato Cabdullaahi Yuusufna kama ay dambeyn Puntland Soomaad garan inta ka dambaysa hadda idin muuqataana waa iska wax maqaar saara Soomaad garan marka waxa weeye Puntland kama hadhi doonto duufaanta guusha ciidanka xoogga Soomaaliyeed waa hubaaltaas biyo kama dhibcaan weeye Soomaad garan waxa weeye ciidamada xoogga Soomaaliyeed ee dalka difaacaya ee dhiigooda u huray guushooda iyo waxa weeye mataqaana dagaalkooda wuu socon dalkana Ilaahay ka sokow intuu abuuray iyaga mas'uulka ah cid ay uga aabayeelayaan iyo cid ay uga gabanayaan iyo cid ay maanta su'aal weydiisanayaan haba yaraatee gobol kastoo Soomaaliyeed ee u baahan inay tagaan ma jiraan gobol kastoo Soomaaliyeed oo ay rabaan inay tagaan cid allaale cid ay maanta fasax uga qaadanayaan ama ay warqad ka codsanayaan ama ay waji uga baahan yihiin ma jiro waxaan u aqoonsanahay nin kasta oo maamul goboleed jooga oo aan ku daba faylin qarannimada iyo dawladnimada iyo hanaanka sharci ee maanta kacaya waxaan u aqoonsanahay qabqable maqaar saara oo waxa weeye daba dhilif oo shayo shaqeeya sida ku cad ee sumada ugu yihiin tusaalana ugu yihiin shacabka Soomaaliyeed samaha jecel u yaqaanaan Dani iyo Madoobe ninka la yiraahdo Macasha Madow iyo ninka la yiraahdo Dhuxulaysta dhirtii dhameeyay ciidamada xoogga Soomaaliyeed haddaan qodobkooda u soo noqdo ciidamada xoogga Soomaaliyeed waxa weeye mataqaanaa hawlahoodii tawaabashahoodii ay bu'aale gacanta ku qaban lahayd ugu socotaa xogo hoose oo aan ku kalsoonahay oo dalka iga soo gaadha oo waliba gobolka Gado iga soo gaadha waxay ii sheegayaan in dalka in ciidanku ay xawli ku socdaan waxaad aragteen qolo yar oo maxaan ku rahdaay ninkii baxsaday ee dambiile ahaa ee dhiiga waxa weeye mataqaanaa shacab ku maqnaa ee janan oo baraha bulshada soo dhigayo iyo mid maqaar saar oo Axmed Madoobe adeegsado nimankaas tuulo yar oo la yiraahdo balguduud mise balxuub leeyahay oo xadka ku taala maxaan ku rahdaay Mandheera iyo u dhaxaysa meesha la yiraahdo Balexaawo ayay maleeshay yaro 10 wiil ah bay isugu keensadeen Soomaad garan iyagoo hotelka ay deganaayeen Mandheera laga soo saaray xalayto oo qaaraankii waxa weeye intii ay ku seexanayeen iska bixin waayay niman wax la jooga marka oo nool oo wax lagaga tashanayo adeer ma aha Soomaad garan janana gacanta cadaaladda iyo garsoolka dalka wuu soo galaya waligaaba wareegaaliso warigaaba tuulo warwareeg waxa weeye mataqaana kaadi badan waa loo gogol badiya dalkan xornimadiisu way soconaysaa bu'aalena toddobaadaha ka hadhay sida loo xoreynayo argagixisada imaanlaawayaasha ee dhiiga ummadda caadista looga qabanayo waxba kama harin dawladana go'aanka la gaadhay waxa weeye mataqaana idinkama qarinayo intaan ogahay go'aanka la gaadhay waxa weeye dalkan inaan laga hibaysan lana weydiin masiirka ummadda Soomaaliyeed nin qabqable ah oo dantiisa iyo jeebkiisa inta waqti yar saaciiday u ekaaday inuu wax maamulo waxa kamida labada nin aan magacaabay ninkan maanta hadlaya ee Boosaaso ka hadlayay adeerayal cod hawaabay oo laaluushaha oo imaaraad bixiyay ayuu ku qaatay wax Soomaad garan taasuna wax si raagayo si raaqaya ma aha Puntlandna way dhisnaanaysaa waxa weeye mataqaanaa wayna jiraysaa waxaana ka dhismi doona maamul goboleed ayidsan jahada dawladnimo ee loo socdo maamul goboleed ayidsan doona hadalladiisa wuxuu ku soo daray war saxaafadda soo saaray ma jeclin aan akhriyo waxyaalaha ay ku hadaaqaan laakiin maanta waan akhriyay waxa kamid ahaa inuu yiri waxbarashadii baa la siyaasaday adeer waxbarasho lama siyaasadayn eexda iyo dulmiga iyo waxa weeye mataqaanaa qabiileynta aad ku dhaqanto ee ka jirta Puntland ee dadka wada dhistay ee Soomaaliyeed ee maanta lagu kala takoorayo oo haday 20 waxa weeye mataqaanaa 20 kursi oo deeq ay timaado aad 15 waxa weeye mataqaanaa ama 19 aad waxa weeye mataqaanaa reer kale aad gacanta u gelinayso adeer ninka walaalka ee Soomaaliyeed xuquuqdiisa ma diidani xuquuqdeedana in lagu xadgudbo ma diidani Soomaad garan eexda iyo dulmiga iyo waxa weeye mataqaanaa dulliyeynta ka jirta iyo sharci ku tumashada ka jirta ayaa goodax bare waxaan ugu hambaliyeenaynaa inuu go'aan geesinimo la ka qaatay inuu qaatay in imtixaankaas waxa weeye dhalinyaradaas ay ugu timaado xamar halkaana lagu kala saaro
nin kastana aqoontiisa iyo maskaxiisa waxa ka soo baxa ayuu maxaan ku radaa adduunku gelaya oo jaamacada adduunka kaga qayb qaadanaya hadduu scholarship helayo cidi kama xigto hadduu jaamacadda ragalayo cidi kama xigto hadduu ciidanka xoog ku biiriyo cidi kama xigto waxa weeye mataqaanaa marka intii lagu dulmi lahaa garowe intii faroolaya in yaro imaan laawayaala oo dalkan ka fadhiisan la'yahay oo waxa weeye mataqaanaa aan dalka raja ka lahayn oo xaaraan u bartay faroolo oo xaaraantii intay gurigiisa ka soo baxday ubadkiisa hooyadii dileen ayaa doonaya maanta dalkan inuu dowladeeyo ninkan aad aragtaan ee buufinka u eegna ninkaasaa xukuma oo amra soomaad garan amarka waxa weeye mataqaanaa faroola ka soo baxa ayuu warbaahinta la yimaadaa marka waa nin caagad marana nin jira maaha waxa weeye mataqaanaa mid sii joogayana maaha waxaanu ku sii joogayn rabitaan shacab baanu haysan taageero shacab baanu haysan waxa weeye mataqaanaa awoodu ku joogaan isu lahayn waxa weeye taageero dawladda xaanu haysan haddaad taqaaneen ama ay socon jirtay ama dadku ay caado ka dhigteen haddii hebel waxa weeye mataqaanaa soomaalida 20 sano la isku soo maaweelinayay hebel waxa wadata meel heblaayo hebel Ethiopia wadata sheekada imaaraadka la soo wareegalesanaya adeer anaga waxa weeye mataqaanaa daalantood noogama duwana inta samaha iyo wala dawladnimada jecel oogama duwana Soomaaliyana way dhismaysaa wayna soconaysaa dadkeeda iyo dalkeedana wixii u danta ah qof kasta oo hortaagan oo dawladnimada diidan uu ka leexanaya waxaanu raalli ka nahay waxaanu ku qanacsanahay xukuumadda talada haysa ee dalka hadda hogaamisa waxa weeye haddii ay tiirka soo taagaan qabqabla kasta oo siyaasadeed oo dalkan baabi'inaya oo dalkan xoolihiisa iibinaya oo dalkan xoolihiisa xaraashaya oo shisheeye dabada ku haya haddii tiirka la taago oo la toogto waa xalaal 27 sano ku dhawaad Puntland jirta war miyaad aragteen hal deked hal airport hal waxa weeye mataqaanaa cashuurta ummadda Soomaaliyeed laga qaaday oo xalaasha ah oo dhididkoodii ah oo inta laga soo qaaday wax loogu qabtay garoonka magaalada Garowe waxa weeye mataqaanaa Kuwait baa bixisay mashruuc ceel daahir ceel doofa waxa weeye mataqaanaa Kuwait baa bixisay waxaana laga ururiyaa qaadhanka ummadda Soomaaliyeed shacabka ayaa guryahooda iyo ganacsiyadooda loogu tagaa hantida laga soo qaadaa dekadii u imaaraad carbuuntay ee 3 sano hadda maraysa hal sano ayuu heshiis ku soo bandhigay gaas ninkii la oran jiray wuxuu yiri hal sano gudaheed ayaa dekada lagu bilaabayaa dhismaheeda maxaan ku dhahay percentage income ka soo baxayana ee maalinlaha soo galay dekadana waxay qayb ku leedahay 30% waxa ku leeyahay imaaraad aaway 30% ee kiish kashka laga qaado ee maalin kasta dekada ka soo baxa lacag ka badan 1 milyan ku dhawaad ayay toddobaadkii imaaraadu xirota aaway lacagtaas marka 1 mitir laguma darin dekada way caawlan tahay xitaa waxaanay lahayn kaambe macnaha wiishashkii dekada wax ku soo xidhay xitaa ma laha Soomaad garan garacad shacab Soomaaliyeed baa dhisanaya hantidoodii intay ururiyeen oo wixii ganacsigooda ay ka shaqeeyay ururiyeen oo iyagu isxilqaameen oo isbahaysteen ayay waxay ku fakereen inay dhistaan dekad ay wax kala soo degaan Soomaad garan dadkan wuxuu u baahan yahay maskax jahaysa oo siyaasadeed oo dalkan iyo dalkan rajo kale oo daacad ah laakiin se uma baahna qabqable imaan laawo ah oo jeebkiisa iyo kursigiisa ilaashanaya Soomaaliyana way soconaysaa wayna guuleysanaysaa idam Allah mana fogaan doonto xilliga la arki doono dalkan oo daba ka dacal ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wiilasha u dhaartay inay noloshooda u hubeeyaan calanka buluuga ah wiilasha u dhaartay ee qalinka u dhigay iyagoo jaamacadaha ka soo baxo wada master ciidanka galaya adeerkaama duwana 9 bilood buu kula dhashay hanteed haysta wuu haystaa kuwa qurbaha ka yimi oo 60 wada haysta Canada iyo Mareykanka ayaa ka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida adigana waxa laga yaabaa gobol kamida Soomaaliya inta joogto aabaha Bakhaari ruuxna uu leeyahay inaad ka faanto ciidankaaga Soomaaliyeed waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo waxa weeye mataqaanaa dalkan rajo kale oo Soomaalinimada fahansan oo waliba inta ilbaxday ee qurbaha soo aaday halka yaaba dalkiina ku noqday waxaan idinka codsanaynaa inaad joojisaan propagandada cadiifadaysan ee qabiilaysan ee qaarkiin badankiina maaha qaarkiin sida xun u faafisaan adeer waxa weeye 20 sano humaag waraaba u taaga oo maamul beeleeda waa lagu soo hoos noolaa waana la arkayay halkii laga taagay ayuuna taagan yahay Soomaad garan waxa weeye dawladihii xilliga burburay ee dhismay Ethiopia tusaale kugu filan Ethiopia Tigray
iyagoo kaba cadcad oo saraawiil gaagaaban xiran ayay dhergi rideen maantana waxay ka mid yihiin quwadaha Afrika ee ugu awoodda badan hadday dhaqaale noqoto hadday military noqoto hadday kaabayaal dhaqaale noqoto hadday siyaasad noqoto waxa weeye waa dad aaminay dalkooda inay dhistaan waa dad aaminay dalkoodu muhiimadda uu leeyahay iyo isku xidhnaanta iyo wadajirkoodu si kasta oo la isu mucaarado ama si kasta oo wax la isaga sheego ama si kasta oo la isugu dhaco lama taabtaan weeye calanka Soomaaliyeed waadi mucaaradi kartaa waan ku mucaaradi karaa waxna waan ka sheegi karaa xisbi mucaarad baan furan karaa haddaan doono kursiga dhexdiisa isku feeri karnaa laakiinse sharafta jiritaanka iyo cisiga iyo karaamada calanka buluuga uu leeyahay waa lama taabtaan ninka taabta ee maanta isla hebel ku xume war calanka ma farmaajo leh ma khayra leh ba waxa weeye ma taqaana mursal baale ma laha aniga le adiga le ka ku ag jooga le ka walaalka baale kii ku dhalay baale kuguma xuwayn karo cudada iyo waxa weeye ma taqaana waxa weeye waxaan adig ka tirsanayo adeerka uma geysan karo Soomaad garan dad noocaas marka oo kale waxbaan hogaaminaa oo kale waxbaan nala doortay ay inay caagad maran yihiin oo siro yihiin ayaa baraha waxay magaalo waxa weeye taqaan warbaahinta waxay la imanayaan waan tashanayna adeer cid u taliso horta la soo helo wallahi waxaan ku faraxsanahay oo billahi aan ku faraxsanahay inuu garowo intuu tago inuu yiraahdo waan go'ay ma fahamtay waxaan hubaa oo ku kalsoonahay in shacabka Soomaaliyeed ee xalaasha ee dalkan iyo dawladnimadan jecel ee waxa weeye raaliga ka ah dalka Soomaaliyeed inuu dhismo inay gacan ula tagayaan oo isagoo waxa weeye kabihiisa faraha ku sita aad maqli doontaan inuu Dubai ama Kenya ka degay Soomaaliya way soconaysaa wayna guuleysanaysaa idam Allah waxa weeye ma taqaana wax waabinaya oo hortaag doonana ma jiraan sheergareeya barnaamijka sheerta lagu wada qabto waxaan doonayaa caagada madow iyo inta la garaadka ah ee waxa weeye ma taqaana ku hareeraysan inay gaadhamaan rabaa waxa weeye maxaan ku raada barnaamijkaygan farmaajo iyo khayr dadka ku dhagan ama si gaar ah wuxuu turjuma waxa weeye Soomaaliya 30 sano ayay burbursanayd iyadoo waxa weeye ma taqaana bahala gale noqotay oo qof kasto waxa weeye ma taqaana dantiisa u shaqaysanay uu awood yeeshay godkii uu ku dhuuman lahaa abuurtay waxa weeye awoodii difaaci lahayd samaystay ayaa dawladda Soomaaliyeed la helay marka laga soo bilaabo tan hadda talisan wixii hore waxa weeye tukubay ahaayeen dad daacad dawladnimo daacad kaana ma ahayn waxay qaadanaysaa waqti waxa weeye ma taqaana xilli dheer in la faago godadka bahaluhu galeen in la faago daalimiinta gafanaha ku noqday xoolaha ummadda Soomaaliyeed in la soo saaro argagixisada ku xidhiidhistay ummadda dhexdeeda ee diinta iyo masaajidadii galay waxay u baahan tahay dadkan in lagu wacigeliyo qaarkoodna awood looga saaro wayna socotaa indhihiina maqraatiya Soomaad garan waxa weeye anigu qofka waxa weeye wanaagiisana waan qiraya xumaantiisana waan sheegaya haddii dalkan uu wada ka qalloociyay oo maxaan ku rahdaa uu wax ka khaa'imay oo mashruucu baabi'iyay oo jaanis taagan uu baabi'iyay waxa weeye mataqaana waan sheegaya haddii laakiinse wax wanaajiyo oo wadadii saxda ku socdo adir waxaan ku niyad jabiyo iyo waxaan siiga isugu qariyo garamaayo Soomaad garan 30 sano lagu soo jiray qabqable madaxa loo salaaxayo oo la leeyahay reer hebel maamulaa oo waxa weeye mataqaana gobol hebel buu haystaa oo waxa weeye mataqaana aan dan Soomaaliyeed iyo dan dawladnimo iyo dan shacab midna aan ka shaqeynayn Soomaad garan ahla sunnah waxa weeye mataqaana raali ka inay sii joogaan badooban raali ka inay sii joogo dani maana raali ka inay sii joogo except for the other three president marka laga reebo saddexda kale ee waxa weeye mataqaana maanta aysan dawladnimada ee rabo waxa weeye mataqaana in dalkan hore u socdo ee dawladda la shaqeynaya waxa weeye Soomaaliya xilligii waxa weeye mataqaana nin kasta la bari lahaa la laaluush lahaa adeer waxa nin qabqabla lagu laaluushayo ee afka loogu buuxinayo waxa weeye 200 wiil oo Soomaaliyeed oo yar oo caruur soo kacaysa bay dugsi u dhisaysaa oo macallinkii wax barayay bay ka bixinaysaa oo waxa laga yaabaa ceel inay qodi lahayd waxa laga yaabaa hooyo umula soo dhiig baxaysa inay waxa weeye mataqaana MCH u samayn lahayd maxaa markaa kugu kaliifaya inaad mid qabqabla oo imaan laawo ah oo hadda doontina isku reertiinba oo weligii aan arag hadda weligii ma arag ilaa ay haddaan aqaana rag aan saaxiibanahay oo ma jeclina magacooda sheego
niman qabqablaa oo isku reeriyiin bay taageeraan haddii aad tiraahdo inaad orog maxaad ka faa'iidaysaa bal ninkaas waa qabqable ninkaas waxa weeye kursigiisuu rabaa maalinta uu kursiga u baxayo wuxuu ku oranayaa yaa reer hebelaay buu ku oranayaa maalinta uu u baxo kursigaana kuma yaqaano iska daaya deegaanka uu ka soo jeedo MCH uma awoodo inuu dhiso soomaad garan waxa weeye sanadka u horeeya deyn buu iska bixinayaa ama jeebku buuxsanayaa sanadka labaadna labada sano u dambeeyna waa inuu kursiga isku ilaaliyaa laaluush bixiyaa xildhibaanada iibsada hadba kooxa samaysta nin marka qadiyadiisu ay nooca tahay aragtidiisuna ay nooca tahay waxa weeye hankiisa Soomaalinimadana uu nooca yahay waxa naga dhaxeeya haba yaraatee ma jirto waxaanu isku hadafnahay waxaanu isku aragtinahay waxaan waxa weeye ma taqaanaa wax wadaagnaa sinjiyada iyo calankuna nagu midaya ninka leh jiidnaha dawladnimada jiidnaha danyarta Soomaaliyeed ee qiraya in 30 sano oo black ay dalkan iyo dadkan ka halaabeen in jiil dhan oo kacay oo maanta qaan gaadhay oo aabayaal ah aysan soo arag waxay asaagooda caalamka ay soo arkeen waxay asaagooda caalamka ay soo arkeen aan soo arag oo nasiib u yeelan ilaahayna kama hortaagneyn ilaahay baa sidaa yiraahdaan ilaahay ma nisbeeyo waxa inaga hortaagnaa qabqable aan dan iyo muraad dalkan iyo dadkan kala hayn waxa inaga hortaagnaa mid jeebkiisa buuxsanayay oo maalinba markuu 1 milyan helo raadinayay inuu 2 milyan oo kala helo oo ay xaaraanta u sii dhadhamaysay oo waxa weeye ma taqaanaa dhiig iyo dhuuxba u daadinayay oo dhalinyaro Soomaaliyeed noloshooda iyo mustaqbalkooda u qoonsaday oo kii dhaawacma hooyadii kii dhinta iyo kii dhaawacma hooyadii dhashay un baa tabays kii dhintana hooyadii uu ka dhintay baa taqaana kii curyaameyna hooyadii uu ka curyaamay ayuun ba ilaa hadda maanta la daala dhacda hadduu nool yahay soomaad garan marka qadiyada noocaasa ee waxa weeye ma taqaanaa buushka ah ilmaada rayaal inama anfacdo dalkeena iyo dadkeena ma anfacdo waxaynu u baahannahay inaynu aamino inaynu qirno war 30 sano inaga halaabay war muxuu inooga halaabay war qofku waxa la doqonta baa la godkii waxa weeye ma taqaanaa laga qaninay mar labaad laga qanino waa alla dilde haddii Soomaalinimada iyo dawladnimada ay 30 sano ay qabqable iyo qabiil inaga luntay war maxaynu maanta u sii daba joognaa war jannada iyo wanaaga iyo waxa weeye ma taqaanaa barwaaqada qabiil lagu gaadhayo war ilmaada reer 30 sano baan ku gaadhin war miyaan guusha maynu hello Soomaaliland baad aragtaan intay reer haan isu urursadeen bay waxay ku dhahay ixtiraaf baan raadsanayna war miyaad aragteen 30 sano wuxuu soo kordhay maanta marka dani waxa weeye ma taqaanaa aan aqaano aqliyadiisa iyo waxa weeye taqaanaa dadnimadiisa in dad ka horeeya oo ka ilbaxnimo horeeya oo ilaa Cusmaaniyiin boqortooyo soo ahaa oo dadkan ilbaxnimadii Soomaaliya ka soo bilaabatay inuu maanta intuu warbaahin yimaado oo waxa weeye 40 maleeshiya u eegago suud calala u soo xidhay intuu garbihiisa istaashay yiraahdo waan tashanaya adeer waxaan ku sheegaynaa waa tashan kartaa adiga inta kugu xereeraysan way tashan karaan garowana shir waad ku qaban kartaa ma dhaafisa gudahaaga ogow hadday dhaaftana waxay noqon doontaa mid ka saarta inta aad ku sugan tahay inoo sheergareey barnaamijka inoo sheergareey gado maanta waa nabad shacabka Soomaaliyeed waa dabaaldegayaan waxay ma taqaanaa farxadii habeen hore bilaabatay magaalada iyo hareerada ka bilaabatay gobolka gado ka bilaabatay way si laba jabaartay ciidan cusub baana dawladdu qoraysaa waxay ma taqaanaa gobolka gado lagu qorayo ceel waaq iyo afmadow iyo maxaan ku raadaay dhoobleyna gacanta dawladda daqiiqadaha waxa way maalmaha ka dhimantay soo galayaan waa hordhac bishaaraan idin sheegayo cid raja ka qabta Axmedoobe iyo kooxdiisa xumbadaana adeerayaal samriga iimaan Allah idinka siiyo intiina rajada ka qabta waxa weeye waa tiir waxa weeye waa boog madow oo waxa weeye ma taqaanaa cadow daba dhilif ah iigamana duwana ninka argagixisada ah ee dhiigga ummadda Soomaaliyeed xasuuqaya isqarxinaya iigama duwana Soomaad garan hadduu qabiil yahay iyo hadduu waxa weeye ma taqaanaa shay taageerayaba adeer iigama duwana kan waxa weeye ma taqaanaa intuu isqarxiyay ummadda Soomaaliyeed isku qarxiyay diinta ay sheegtay diin laawe kaas iigama duwana wuuna tagaya
waana argagixisa iyo argagixiso weeke Soomaad garan Bu'aale iyo Kismaayo iyo Doobley iyo maxaan ku raada Ceelwaaq iyo inta ku hareeraysana gacanta dawladda kama maqnaan doonaan bishan dhamaanaysa ku bushaaraysta iyada sida xabad kiniina u laqa in waxa weeye ma taqaanaa jubo oo dhammaystiran shabeelle hoose iyo shabeellada dhexe oo dhammaystiran inaysan gacanta dawladda ka maqnaan doonin ku bushaaraysta ninka gargariiraya ee waxa weeye taqal boosaaso ka soo hadlayna cid kale laguma diraye 20 kun oo wiilasha Cali Salaaman baa lagu diraya iyadaa kugu filan bas kalsooni baan ku qabaa inaan Ciise Yuluux iyo intuu wato kugu soo diro oo waxa weeye ma taqaanaa qoorta soo qabta cid kale looma baahna walaa military Soomaaliyeed baan ku imanay walaa waxa weeye ma taqaanaa harim cad baan ku imanay walaa waxa weeye ma taqaanaa farmaajo iyo khayran ku soo doonayn intaas kugu filan kawde ma jeclayna barnaamijka aan ku sii dheeraado ujeedada intaan waxa weeye intaas ay doonay inaan waxa weeye ma taqaanaa shadaadiinta haddii aad nabar la gaadhowda waa la nacladaa waa lagu tufaa marka nacladan ku soo tufayay shadaadiin weeye wayna ka dhex baxayaan dadkan iyo dalkan way ka baxayaan xilli aan fogeyn bay ka baxayaan waxaan idinku bushaarinayaa inaysan sharciga dalka iyo dadkan aysan gafin maalin aan fogeyna cadaalada hor imanayaan idam Allah insha Allah ilaahay waxaan ka bariyay inaan arko maalin iyagu cadaalada hor taagan maxkamadda hor taagan oo lagu qaadayo dambiyada ay dalkan iyo dadkan ka galeen ama waad sii badsan ama waad sii yaraysan oo intaad goorgoor tahay ayaad nabadda qaadanaysaa laakiinse intay sii walwaalayo adeer waxaad badsatay oo kororsatay silsiladaha lagugu xuri doono ee gacmaha goyn doona ayuunbaad sii kororsanaysaa dalkana wuu soconayaa Soomaaliyana idam Allah way guulaysanaysaa muxibayga maaha waxa weeye manta xog dhab oo xaqiiqo aan hayo waan ku sheegayaa Soomaad garan waxaan rajaynayaa inaad qaadato oo dalkan iyo dadkan aad ka qayb qaadato oo samaha faafiso kuma diidana inaad mucaarad noqoto ama xisbi mucaarada ku biirto laakiinse waxaan ku diidanahay inaad xisbi qabiil ku biirto ama aragti qabiil iyo aragti cadiifsan aad ila timaado anigu waan taageeraa xukuumadda waddanka joogta waxaana ku taageerayaa inaan arkay iyadoo dalkayga dhisaysa iyadoo ubadka Soomaaliyeed ee soo koraya rajo u yeelaysa iyadoo cadawga dalkayga hindisaya hunguri kaga jira cunantiisa wax soo saarkiisa iscilinaysa hushiska oranaysa wali kuma garaatan dawladda Soomaaliyeed oo cadow dalkan ku soo hujuumay ama cadow dalkan macdantiisa iyo xoolihiisa raba iska celinayso gacanta u taagaysa adeer wali maynu arag ninka iska celinaya maanta tusaya raganimadiisa iyo dawladnimadiisana waan ku taageerayaa waxa weeye ma taqaanaa waana garab gelayaa Soomaad garan Soomaaliyan way israacaysaa idam Allah insha Allah billahi kariim ma foga xilli dhowbay waxa weeye ma taqaanaa hawshaas rumoobaysa xawli bayna ku socotaa mana waaban doonto waxa weeye ma taqaanaa idam Allah haddii Allah yiraahdana waqti kaama xigo haddaad ceeb kororsan lahayd iyo haddaad wanaag dhitaysan lahayd haddii aad waxa weeye ma taqaanaa dalkaaga iyo dadkaaga dhinac ka raaci lahayd haddii aad dalkaaga wanaagiisa faafin lahayd haddii aad dalkaaga waxa weeye quruxdiisa ilaalin lahayd haddii aad sinjeedaada jiritaankaaga qowmiyadnimo iyo Soomaalinimo aad dawr lahayd kor u qaadi lahayd oo muujin lahayd dadka Soomaaliyeed walaalayihiin dad jecel yihiin wadarishan yihiin hal qowmiyadna yihiin waxa weeye ma taqaanaa waa jaanis ku banaan oo adiga ku furan haddii aad xagga xumaanta qaatana waa wada madow oo soo dhamaanayso oo 1 iyo 2 iyo sanado aan sii socon doonin laakiinse bilo soconaysa insha Allah guusha Soomaaliyana ma foga way dhowdahay wadadii cadayd bay qaaday dhamaantii way salaamaya calankaas ay noo balana waan meel kasta joogtaana way salaamaya iyo xilli kasta intaaba dhamaantii Allah idin xafido